Ciidamo hor loo ka tirsan kuwa dowladda Itoobiya ayaa lagu soo waramayaa xalayto inay soo dhaafeen xadka Soomaaliya sidoo kale Itoobiya gaar ahaan gobolka Gedo waxaana la sheegayaa in ciidamadan ay gudaha u soo galeen meelo kala duwan oo ka tirsan gobolka Gedo gaar ahaan degmada Doolo ee gobolka Gedo ee maamulka Jubbaland waxaana ciidamada la sheegayaa sidii la dadka deegaanka ay noo xaqiijiyeen inay wateen gawaari dagaal iyo sidoo kale hubka noocyadiisa kala duwan inkastoo si dhab ah loo ogeyn wax ka dambeeyay ciidamadan in lagu soo doodgureeyo gudaha gobolka Gedo ayaa dhinaca kale waxaa xusud mudan in muddooyinkii la soo dhaafay dowladda Itoobiya sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ka dhaxeeya khilaaf aad u xooggan isla markaasna dhinaca kale ay jirtay in dowladda federaalka ee Soomaaliya khilaaf siyaasadeed aad u xooggan oo kala dhaxeeya dhankaasi maamulka Jubbaland waxaana la sheegayaa in madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe dowladda Itoobiya xilligan uu ka helayo garab aad u xooggan oo ku gudaaman in ciidamadooda ay dhaqdhaqaaq ka sameeyaan qaybo ka mid ah gobolka Gedo meelo kala duwan oo ka tirsan halkaas oo sida la sheegay dowladdu ay doonaysay in gobolkaas ay geysay ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya xaaladda guud ee gobolka Gedo gaar ahaan Doolo ayaana la sheegayaa inay tahay xilligan mid aad u kacsan isla markaasna dhaqdhaqaaqyada ka socda yihiin mid aad u sareeya waxaana xusud mudan in shalayto dowladda federaalka ee Soomaaliya ay si cad kaga hadashay ciidamadaas oo ay sheegtay in si sharci darro ah xadka Soomaaliya ay kaga soo tallaabeen isla markaasna ay dhaqdhaqaaqii sidoo kale hurunba ay ka wadaan gudaha gobolka Gedo gaar ahaan degmada Doolo ee gobolka Gedo dhankooda dowladda Itoobiya ayaa ilaa hadda laga helay jawaab cad oo ku gudaaman eedeymaha loo jeedinayay ee kaga imaanaya dowladda federaalka ee Soomaaliya sidoo kale dhaqdhaqaaqyadooda waxa uu salka ugu hayay ka wadaan gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya. Caynul Caafiya Hospital waxa uu ka daweynayaa xanuunka baabasiirka, ma dareemaysaa dhabar xanuun, caajis joogto ah, cuncun dhanka hoose ah, saxarado kugu adag iyo hamiyari dhanka gogosha. Haddaba iskaga ciribtir xanuunka baabasiirka muddo ka yar 15 maalin adigoon wax qalliina lagugu samayn. Wixii faahfaahin kala xiriir telefoonada kala eberli halhal 37 37 83 ama eberli halhal 37 37 86 ama lambarka gaaban ee 3777